madaxweynaha Somaliland ayaa maanta furay Dahabshiil Bank International oo ah baan u shaqeyn doona habka shareecada Islaamka. Afuritaanka bankan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, shirgudoonka golaha wakiilada, gudoomiyaha banka dhexe, madaxda xisbiyada mucaaridka, mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Company, ganacsato, salaadiin, cuqaal waxgarad iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan. ugu horeyna waxaa munaasabadaasi furitaanka Dahabshiil Bank ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Saciid iyo maamulaha guud ee Dahabshiil Bank Saciid Maxamuud Cali. waxay dhiirigelin u tahay dadka waddanka u dhashay bacmushtarka ka bilaaba iyagoo waad la socotaan xaajiga 40 sano ka hor magaalada Burco ayuu dukaan ka bilaabay intaas baa markii sida beesay waddanka ayuu maalkiisa gashanay meeshii doonta laga noqday Soomaaliland kaliya ma aha waxaan ka hadlayaa dhammaan Soomaalida oo dhan marka in waddankaaga aad aamintid oo aad maalkiisa gashatid kana ku faanaysa kana u dhaatay farxad bay noo tahay in maalgelinta laga galinay iyo runtii bangigan oo isaga laftiisa aasaasaya in dad badan oo kale ama ajnabi ha noqdeen ama hanqoda dadkii waddanka u dhashay inay fursad ka faa'iideystaan. waxaa kaloo muhiim ah doorka bangiyada ganacsiga qaybta ugu muhiimsan oo ah maalgelinta ganacsiga trade finance waxa loo yaqaano maalgelinta hawlaha warshadaha oo ah industrial financing maalgelinta hawlaha iyo beeraha iyo wixii la mid ah maalgelinta adeegyada bulshada caafimaadka iyo waxbarashada iyo lamida muddada gaaban ee sanadkan dhammayn ee bankigan rasmi ahaan u furnaa waxaanu ku guulaysanay inaanu maalgelin ku samayno lacag dhan ilaa 70 milyan guud ahaan. geesta kalena waxaa munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha banka dhexe Somaliland Cabdi Dirir Cabdi. haddaan nahay bahda bankana aad iyo aad bay farxad loo tahay inuu Dahabshiil noqdo bankii ugu horeeyay ee aanu siino license madaxweyne baanka tijaarigii waxay koriyaan oo kobciyaan dhaqaaluhu markuu kobco baac mushtariga kordha marka baac mushtarigu koro shaqa timaada marka shaqadu timaadona dadka nolosheeda tayadu way saray u kacdaayo. gabagabadina waxaa munaasabadaasi soo gunaaniday madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo. farxad aad iyo aad weyn bay tahay inaan maanta xafladda qiimaha iyo qaayal ka soo qayb galo furitaanka Dahabshiil Bank. Dahabshiil dowr hormuuda ayaa hay'adihiisu ka soo qaateen horumarinta dalka waqti dalku dagaalku halkan ku jiray wax badan u baahnaa ayuu dowr xoog leh oo laba ilaabana ka soo qaatay maantana horumarinta iyo dhismihii dalka ayaanu hore ugu tallaabsanaynaa taana aad iyo aad baan ugu hambaliyaynaynaa waxaan leenahay waan ku soo dhaweynaynaa isaga iyo ciddii kale iyo intii wax ka qabanaysaba dalka iyo dadku waa u baahan yihiin marka waxaan leenahay tallaabadan maanta la qaadayaa banka halkan laga furayo Islamic Bank laga furayo Dahabshiil Bank waa mid contribution weyn u geysanaysa horumarka dalka. bankan cusub ee Dahabshiil Bank International laga hirgeliyay Somaliland ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyo.